Asalaamu calaykum waraxmatullah. Isku soo noqod wanaagsan asxaabta ku xiran janalka Maanshiil. Barnaamijkani waa barnaamijkeenii macluumaad kooban. Maantana waxaynu soo qaadanaynaa 4 macluumaad oo laga yaabo inay kaa qarsoon yihiin ama aadan hore u maqal. Ee daawasho wacan. Tani waa buur, balse daawada aysan ku sirin sababtoo ah maaha buur iska caadi ah oo waa dhufays ka mid ah dhufaysyada ugu ilaalada adag ee dalka Mareykanka, waxaana gudaheeda ka howlgala ciidamada militariga ee dalka Mareykanka. Sababta buurtan looga dhigay dhufays ayaana ah in looga hortago hubka sida ba'an wax u gumaada ee nuclear bomb, iyo sidoo kale in uu militariga Mareykanka iskaga ilaaliyo gantaaladii ay lahaayeen Midoogii Sofiyeet. Sidoo kale waxaa buurtan lagu tiriyaa inay asal u tahay maamulidda hawada sare ee dalka Mareykanka, waxaana gudaha buurtan ku yaala 2 albaab oo uu culeyskoodu yahay 25 tan, kuwaas oo loogu talagalay inay difaac u noqdaan khatarta kaga timaada dibadda. Waxaa gudaha buurtan laga helaa dhammaan waxyaabaha aasaasiga ah sida goobaha caafimaadka iyo goobaha laga cunteeyo oo kale. Sidoo kale daawade, buurtan ayaa waxaa ku yaala xafiisyo iyo hoteelo oo loogu talagalay shaqaalaha ka shaqeeya buurtan, kuwaas oo lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 1000 qof. Waxaana buurtan laga dhigay dhufays xilligii lagu guda jiray dagaalkii Qaboobaa ee adduunka, waxaana magaceeda laga dhigay Cheyenne Complex Mountain. Dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu tiriyaa inuu yahay dalka ugu awoodda badan ee adduunka, maadaama uu haysto hubab kala duwan, ciidankiisuna ay yihiin kuwo awood badan. Hubka uu haysto ayaa waxaa ka mid ah hubka loo yaqaan laser weapon, oo ah hub aan ridin wax rasaas ah. Sida aad ka akhrisan karto magaca hubkan, waa hub rido laser kuna shaqeeya tamar, ahna mid aan la arki karin laseryaasha uu rido, balse waxaa la arki karaa garaafada uu geysanayo. Wuxuuna dalka Mareykanka sheegay in hubka tamarta lagu hago ee ay ku jiraan laseryaashu inay weli ku jiraan marxaladdii tijaabada, isagoo sheegay in mustaqbalka dhow la arki doono hubkan oo noqday hub militari waxqabad sarena u leh ciidamada dalka Mareykanka. Sanadka markuu ahaa 1943 ayaa nin lagu magacaabo Barnes Wallis soo saaray nooc ka mid ah bambooyinka wax qarxiya. Bamkii uu soo saaray ayaa lagu magacaabi jiray bouncing bomb. Bamkan ayaa ahaa mid ka duwan bambooyinka kale ee aynu naqaano. Waa bamb markii la tuuro ay u badboodayso sidii kubadda oo kale. Bamkan ayaa loo sameeyey si loo burburiyo biyo-xireennadii dalka Jarmalka xilligii dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaana bamkan soo rida diyaarado, kuwaas oo u soo dhowaada dusha sare ee badda si ay ugu tuuraan bamkan, waxayna bamkan noqotaa markaas kadib mid ku dul badboodaysa badda iyada oo u socota halkii uu taargetkeedu ahaa. Sidoo kale daawade, bamkan ayaa lagu sheegay inay khatar weyn ku tahay baylodyada diyaaradaha ee soo ridaya bamkan, maxaa yeelay marka ay diyaaraddu soo tuurayso bamkan, waxaa khasab ku ah inay u soo dhowaato dusha sare ee badda, kadibna ay soo tuurto bamkan. Waxaana marmarka qaar dhacda in bambadu ay qarxdo iyadoo ay diyaaraddu weli ka dheeraan, midaas oo keenaysa in bayloodka diyaaradda iyo bambadu ay isla qarxaan. Bambadan oo lagu magacaabo bouncing bomb ayaa lagu tiriyaa inay ka mid ahayd hubkii ugu saameynta badnaa ee la adeegsado xilligii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Gudaha indhaheena ayaa waxaa ku yaala 2 dhibic. Dhibcahan ayaa waxaa lagu magacaabaa lacrimal point. Waa dhibcaha inoo suurageliya inaynu ilmeyno. Sidoo kale, mar walba oo aynu libiqsano, waxa ay soo daayaan 1 dhibic oo ilin ah, kuwaas oo qooya indhaheena. Dhibcahani maaha meesha ay ilintu ku samaysanto, balse ilinta ayaa ku samaysanta qanjirka loo yaqaan lacrimal gland oo ku yaala dhanka kore ee isha.
lacrimal point oo ah dhibcaha ku yaala indhaheenna ayaa waxaa lagu tiriyaa inay yihiin marinka soo daaya ilinta. Haddii aysan jiri lahaynna waxaa dhici lahayd in indhaha qofka ay qalalaan uuna sida uu qofku ku noqdo mid ay araggiisu daciif noqdeen.